waxaa maanta si rasmi ah degmadan ballaaran ee Awbare looga furay hotel cusub isla markaasina si casri ah loo dhisay laguna magacaabo Awbare Central Hotel oo maalgeliya muwaadin u dhashay degmadan Awbare isla markaasina uu muwaadin ka u dhashay degmadan Awbare uu hotelkani ku maalgeliyay lacag dhan 12 milyan oo bir oo lacagta dalkan Itoobiya ah hase yeeshee geesta kale hotelkan oo ah midkii ugu horeeyay noociisa laga furo degmadan Awbare kana kooban noocyada kala duwan ee hurdada isla markaasina si casri ah loo qalabeeyay ayaa badi munaasabada xadhiga looga jeeday hotelkani maanta waxaa ka soo qayb galay qayb kamid ah culumaadiinka aqoon-yahaniinta odayaasha iyo waxgaradka degmadan Awbare iyo sidoo kale mas'uuliyiinta degmadan Awbare ugu horeeya gudoomiyaha degmada Awbare Cabdi Khadar Maxamed Awaadan waxaana ugu horeyn hotelkani maanta si wada jir ah xadhiga uga jaray gudoomiyaha degmada Awbare Mudane Cabdi Khadar Maxamed Awaadan iyo qayb kamid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay hase yeeshee munaasabada xadhiga looga jaray kadib hotelkani waxaa hadalka iska daba qaatay isla markaasina si isku mid ah u soo dhaweeyay hotelkan cusub ee maanta laga furay degmadan ballaaran ee Awbare qayb kamid ah odayaasha iyo culumaadiinka degmadan Awbare Awbare waa magaalo imika kortay aad sidii hore in aad iyo aad uga bedelan wax badan bay u baahan tahay hotelkani markaa wax badan buu soo kordhinayaa marka waxaan leeyahay caaqilka kulku bilaabayna waan u sheegay waxaan ku idhi singallo wada high class oo sariir u fiican yihiin oo albaabadu qurux badan yihiin kan maantana ilaahay ba ii joojo inoo leeyay inaan maanta ka qayb gala anagu ku hadlaya magacyadii magaranaysa dhammaan dadkii albeerkooyinka lahaa dhammaan waan soo dhaweynana waxaan leenahay waa boqoradayadii hoteelada oo qaab fiican u agaasimay oo bilicdeedu ay muuqato waxa weeyaan wax fara badan oo loo baahnaa oo meheradaha hore ka maqnaa ayay leedahay waxaa kale oo uu hotelkani degmadan ballaaran isla markaasina qadiimiga Awbare uu ku soo kordhin doonaa in qayb kamid ah shacabka degmadu ay shaqo abuur ka helaan bilicda ama quruxda magaaladan caasimadda ah Awbare oo kor u sii qaado maadaama hotelkani yahay mid si casri ah loo dhisay iyo in adeegyada tayadiisu sareyso uu bixin doono hotelkani horena ugu baahnaayeen shacabka degmadu ay ka faa'iideystaan waxaa kaloo hotelkan la rajeynayaa in degmadan ballaaran ee Awbare uu ku soo kordhiyo in ganacsatada kala duwan ee degmadu ay dhankooda maalgashadaan degmada isla markaasina dhistaan maadaama magaalo walba dadkeedu dhisto horumariyo isla markaasina uu meel sare gaarsiiyo dhaqaalu soo kordhinayaa bilic buu soo kordhinayaa adeeg buu soo kordhinayaa dhaqaalu soo kordhinayaa oo qoyskii hotelkan diyaar gareeyay magaranaysa dhaqaalu ka helaya oo bulsho kamid ah qoysku dadka Awbare bulsho kamid ah weeyaan bilic buu soo kordhinayaa waad arkaysiin sida uu dhisan yahay iyo quruxda uu leeyahay magaalada maadaama caasimada socota Awbare wuxuu ku soo kordhinayaa bilic adeeg buu soo kordhinayaa awalba Awbare hotel way jireen laakiin hotelkan oo kale waa hotel casri ah oo tayo leh oo casraysan weeyaan annaguna waxa weeyaan ka magaalo ahaan iyo ka ganacsi ahaan waxa weeyaan waa bilic iyo maxaan ku dhahaa horumar aw noo soo kordhiyay caaqilku waxaan leenahay inay meherad kasta oo noocyada ganacsiga kamid ah inaan hore u sii guurnana insha Allah waan rajaynaynaa oo magaalada u baahan tahay inay inagu magaalisano oo wax kasta loo horo hadii laakiin cid kale inoo imarsiino magaalada ma jirto marka waa inagu ganacsatada tahay haday wax garad tahay haday deegaanka Awbare dad ka soo jeediyeen in iyagu magaaladooda hagaajiyaan waxana ay ka qabsadaan magaaladuna wax badan bay u baahan tahay ma dhawaa dhismayaasha hoteelada goobaha ganacsiga iyo sidoo kaleba mashaariicda kale horumarneed ee bulshada degmadan ballaaran ee Awbare ay ka dhistaan ama ka hirgashaan degmadoodu waxa uu kor u qaadayaa dhaqaalaha degmadooda waxaa kaloo uu kor u qaadayaa bilicda ama quruxda magaaladan caasimadda ah ee Awbare hoteeladu iyo maalgashiga magaalooyinkuba runtii waxay kobciyaan dhaqaalaha iyo horumarinta magaalooyinkaba qayb weyn bay ka qaataan kaytigsanaysa iyo bulshada hadafkeeda guud horumarka waan jeclahay horumarka waan
jeclahay aw bare sidaad ka dhawaajiseen iyo siday u muuqatay runtii way u baahneed hudheelo noocana iyo kuwa ka sii badanba inta kale la hayana in la sii qurxiyo la hagaajiyo iyada lafteedu waa wax meesha ku jira markii ugu dambeysay aniga wariye Cabdifataax degmadan Awbarhe oo ahayd sanadkii 2015 tirsi taariikheedka caalamiga waqtigaasi oo degmada Awbarhe dhanka dhismaha guryaha magaalada uu bilowha ayaa 8 sano kadib hadda waxa la soo sheegayaa in badi 4 xaafadood ay ka kooban tahay degmadan Awbarhe laga wada taagay dhismayaal u badan guryo aad u qurux badan oo markaas sii dhex lugaysa xaafadaha magaaladana sida la soo sheegayo aad arkayso in xaafadba xaafada kale dhismaha guryaha ka socda ka shidan tahay ku darsado guryahani aad ka u quruxda badan tiraahana aad u badan ayaa 100% waxa dhistay isla markaasina degmadooda ka hirgeliyay shacabka ku nool degmadan Awbarhe 8 sano ugu dambeysay bulshadu way dadaashay reer Awbarhe oo hantiga ay geliyeen iyo waxa guri uun laga dhisay maanta waa wax aad u muuqdo oo runtii aan la malaysan karin dareenka wadaniyada dadkeeda ka muuqdo dawada maamul soo bamba hogaaminta daadashay dareenka wadaniyada dadkeeda ka muuqdo dawada maamul soo bamba hogaaminta daadashay degmada Awbarhe wax qabad xannana bulshiyo daryeel dariiqyadiyo dhismaha dadweynu maraagoye degmadan ballaaran ee Awbarhe oo 4 sano la soo dhaafay horumar aad u ballaaran ku tallaabsatay ayaa degmadu waxay aad u tabaysaa kaalintii qurba joogta u dhalatay degmadan Awbarhe iyo sidoo kaleba qurba joogta u dhalatay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo badankood soo maalgeliya magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal isla markaasina degmadan ballaaran ee Awbarhe ay hadda kadib u baahan tahay mashaariicda horumarneed ee qurba joogta u dhalatay degmadan Awbarhe iyo sidoo kaleba qurba joogta u dhalatay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ay ku maalgeliyaan isla magaalada Boorama in qayb ka mid ah ay soo gaarsiiyaan degmadan ballaaran isla markaasina qadiimiga Awbarhe oo waqtigan aad ugu baahan mashaariicda dhanka horumarka hoteelada iyo ganacsiga waxa ka maqan garab joogsigii qurba joogu iyaga laftoodu maalmahanba way hadal hayeen maamulka iyo degmaduba waxaanad moodaa inaan qolada qurba joogta kii Awbarhe u dhashay iyo kii Soomaaliland u dhashayba inta badan waxa xoorteeyay oo xagaa baan u joogsano annaga dhexda u galnay in la isku soo furmo oo si wada jira loo wada shaqaysto oo degmadana qayb laga soo gaarsiiyo wixii yacni wax qabad oo ah ee qurba joogu ay u leedahay deegaanada kale ee Soomaaliland sida kulley ay la rajaynay inay Awbarhana ay soo gaadho markan milicsaday dalkana horumarka magaaladiyo miiga gaareen arkay adoo maskaxdaada lumin Awbarhe Soomaal gashada markan milicsaday dalkana horumarka magaaladiyo miiga gaareen arkay adoo maskaxdaada lumin Awbarhe Soomaal gashada ugu dambayna aqoonyahan Cabdikariin Daahir ayaa dhammaanba qurba joogta u dhalatay degmadan Awbarhe iyo sidoo kaleba qurba joogta u dhalatay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ugu baaqa inay soo maalgashadaan degmadan ballaaran isla markaasina qadiimiga Awbarhe
oo wakhtigani aad ugu baahan mashaariicda dhanka horumarka hoteelada ganacsiga iyo sidoo kale horumaro kale oo markaasi faa'iido badan u yeelanaya qurba joogta u dhalatay degmadan Awbarhe iyo sidoo kaleba qurba joogta u dhalatay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ee markaasi soo maalgashada degmadan ballaaran ee Awbarhe sidii qurba joogga oo na dhageysanaysa aan u gaarsiin lahayn inay degmaduna diyaar u tahay bulshada reer Awbarhe ay diyaar u yihiin in wixii ay qurba joogga deegaankuna ay uga qayb qaadan lahaayeen ganacsi mashaariic badan baa socda oo uga faa'iido badan bangalooyinka iska xidhan Boorama iyo meelo badan ba iska xidhan maanta halkan xoolo u soo saari lahayn oo hantiye u sameyn lahayd markan milicsaday dalkana horumarka magaaladiyo miiga gaareen arkay adoo maskaxdaada lumin Awbarhe soo maalgashada saday dalkana horumarka magaaladiyo miiga gaareen arkay adoo maskaxdaada lumin Awbarhe soo maalgashada fursad ganacsi oo jirta oo aan la malaysan karin baa degmada taala waxaan leenahay cid kasta oo wax maal gashanaysa ama wax danaynaysa ganacsi inay gasho hala soo xidhiidha maamulka sidoo horeba inoogu ballan qaaday way idin furan tahay buu yiri xuduuduhu iyo ciddii maal gashanaysa deegaanka u dhalatayba gacmo furan baan ku soo dhaweynaa buu horeba noogu yiri annaguna fariinteeda waxaan uga faa'iideysanaynaa in laga faa'iideysto degmada markan milicsaday dalkana horumarka magaaladiyo miiga gaareen arkay adoo maskaxdaada lumin Awbarhe soo maalgashada markan milicsaday dalkana horumarka magaaladiyo miiga gaareen arkay adoo maskaxdaada lumin Awbarhe soo maalgashada degmadan ballaaran isla markaasina qadiimiga Awbarhe oo ku taala goob muhiim ah isla markaasina u dhaxaysa labada magaalo ee waaweyn ee kala ah magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kaleba magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa gudoomiyaha degmada Awbarhe mudane Cabdi Khadar Maxamed Awaadan waxa uu dhankiisa ballan qaaday in shacab weynaha Soomaaliyeed ee howlaha muhiimka uga imaanaya dhinaca magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal isla markaasina imaanaya magaaladan Awbarhe ee xarunta degmada Awbarhe in uu dhankiisa u fududeyn doono in si sharciga waafaqsan uga soo gudbaan xadka uu isticmaalku kala dhex dhigay dadka walaalaha ah ee Soomaaliyeed ee wada dhashay ee ku kala nool labada magaalo ee kala ah Awbarhe iyo Boorama macala roosyadii baa ku jiro deegaan waxay bartan u tahay Jigjiga iyo Boorama iyo deegaano badan bay bartan u tahay Awbarhe oo ay waa meel aad runtii oo ma taqaanaa madal aad u muhiim ah aroosyada laftooda meelay aroosyada lafteeda hoteelka waa qayb uu ka yaho waa la iska soo bixi karaa gudoomiyuhuna waa fasax buu neeyay Jigjigana waa laga iman karaa Booramana waa laga iman karaa iyada kaytiigsanaysa iyo bulshada hadafkeeda guud horumarka waan jeclahay horumarka waan jeclahay ugu dambayna gudoomiyaha degmada Awbarhe mudane Cabdi Khadar Maxamed Awaadan oo ka hadlayay dhankiisa munaasabada xadhiga looga jaray hoteelkani ayaa ugu horeyn tilmaamay in mulkiilaha hoteelkani ahna injineer Caaqil Cabdullaahi uu maanta soo bandhigay hibadiisa isla markaasina uu degmadan ballaaran ee Awbarhe uu ka hirgeliyay hoteelkii ugu horeeyay ee noociisa ee markaasi laga furay degmadan Awbarhe sidoo kale gudoomiyaha degmada ayaa dhammaanba ganacsatada kala duwan ee degmada iyo sidoo kaleba qurbo joogta u dhalatay degmadan Awbarhe ee waqtigan ku nool dadka dibadiisa ama qurbaha ugu baaqay inay soo maalgashadaan degmadoodan ballaaran ee Awbarhe ganacsatada
iyo dhalinyarta iyo waxgaradka ka soo qayb galay xafladan maanta aan xarig kaga jirnay hoteelka Awbare Central Hotel oo mulkiile ka yahay injineer Caaqil Cabdilaahi waxaan leeyahay injineerka xirfadiisii ayuu la soo maanta shaactigay oo soo bandhigay una hirgeliyay marka waxaan ku dhiirigelinayaa ganacsatada iyo dadka qurbo joogtaaba inay sidan oo kale ay uga qayb qaataan degmadan ballaadhan isla markaasina qadiimiga Awbare oo ah degmada ugu weyn dhammaanba 95 degmo ee guud ahaanba waqtigan uu ka kooban yahay deegaankan Soomaalidu isla markaasina degmadan Awbare ay ku nool yihiin bulsho aad u tiro badan sidoo kalena degmadan ay soo booqdaan hay'ado caalamiga ayaa gudoomiyuhu waxa uu tilmaamay in hoteelkani uu adeegi doono qayb ka mid ah shacabka degmada sidoo kalena gudoomiyaha ayaa ku sii dhiirigeliyay injineer Caaqil ahna mulkiilaha hoteelkan in dadaalka uu si laba jibaaro isla markaasina ay shacabka degmadu mustaqbalka ka sugayaan injineerka in hoteelkan mid ka sii tayo sareeyo uu ka furo degmadan ballaadhan ee Awbare maadaama degmaduna ay tahay degmaheed ballaadhan oo bulsho badan ay ku nooshahay duqeyba cid walbana ay soo booqanayso oo ay ka mid tahay hay'adihii iyo cidii kale shaqo u imanaysa marka hoteelka waxa oran karaa wuxuu wax ka bedeli doonaa adeegii magaalada Awbare waxaana leeyahay ku dhiirigelinayaa ganacsatada injineerka Caaqil Cabdilaahi inuu sidan oo kale laftiisa uu sii wado hawshiisaas oo kan uu ugu joogsanay kuwa kale ka badan maanta looga fadhiyo aad baan u mahadsantiin dhamaantiin si kastaba ahaatee hoteelkan cusub isla markaasina sida casriga loo dhisay ee maanta laga furay degmadan Awbare ayaa ah midkii ugu horeeyay ee noociisa ee markaasi laga furo degmadan ballaadhan isla markaasina qadiimiga Awbare oo dhowrkii sano ee la soo dhaafayna degmadan Awbare aad ugu baahneed mashaariicda dhanka horumarka hoteelada waxa kale oo degmadan Awbare ay waqtigan aad ugu baahan tahay kaalintii qurbo joogta u dhalatay degmadan Awbare oo hadda kadibna shacabka ku nool degmadan Awbare ay rajeynayaan in qurbo joogta u dhalatay degmadan Awbare ay soo maalgashadaan degmadooda isla markaasina ay degmadoodan ka soo dhistaan hoteelkani maanta laga furay degmada Awbare hoteelo kale oo ka sii tayo sareeya oo waqtigan degmadu ay aad ugu baahan tahay warbixinteenana dhanka farsamada muuqaalka soo jeedinta iyo waliba soo saaristuna waa anigoo ah Fataax Cabdullaahi Ibraahim Soomaali Awbare u dhalada warbixinta xigta intaanu ku kulmi doonana daawadayaal dhammaantiinba daawadayaashiina bilowga warbixinteena hadda waanu soo gaarnay gunti iyo gabagabadii warbixinteenana idinla waa ku mahadsantiin daawashadiina warbixinta xigta oo daawadayaal jeclahayna inaan idinka soo gudbiyo haddii Rabbi raali ka noqdo bartamaha degmada intaan ku kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa idinkagana tagayaa sidaas iyo nabadgelyo nooli kulantay iyo waliba fi amaanillah